sheekooyinka suuqa ayaan fiirin doonaa markan iyo warbixinada xiisaha badan markii la eego suuqa. waxyaabaha ugu waaweyn maanta waxaa qayb ka ah markii la eego iyadoo macallimiinta iyo ciyaartooyda la hadalhay ee qayb ka tahay Gareth Bale markii la eego Jesus Zon Phillips Danjabalos iyo ciyaarahan markii lagu magacaabo Thomas Muller. magacyadan waa kuwa markii la eego ugu waaweyn aadka loo hadalhayo. Manchester United ayaa markii la eego doonaysa soo qaadashada laacibka caanka ah ee Gareth Bale oo 30 jir ah ka oo dhaawac kaga maqan naadigiisa. United ayaa xiisaha ugu weyn u qabta laacibkan soo qaad sida ay qortay Mirror. City ayaa 100 milyan miiska u saaraysa markii la eego ama 100 milyan madaxiisa dul dhigtay wiilka kooxda ka tirsan Gabriel Jesus oo 22 jir ah ka oo dalab ka helay kooxda Bayern Munich. City ayaan u sheegtay Bayern Munich inay bixiyaan 2 ama 100 milyan haddii ay doonayaan soo qaadashada wiilka caanka ah ee Gabriel Jesus. madaxa caanka ama madaxa ugu sareeya naadiga United ka Edward Ward ayaa 125 milyan markii la eego la gelaya kooxda Bayer Leverkusen si uu kaga soo qaato laacibka qadka dhexe Kevin Havertz ninka lagu magacaabo 20 jir ka oo Bayer ka tirsan Thomas Muller oo 30 jir in 125 milyan kooxdu ay ku soo qaadato. Bayern Munich dhankeeda ninka ugu sareeya Hasan Salihamidzic ayaa isna markii la eego sheegay kooxda inuu bisha Janaayo daaqada ka bixi karo Thomas Muller ama uusan fursad u haysan ama Janis aysan jirin wiilka ku baxo xilligaasi. Tottenham ayaa iyaduna markii la eego diidan inay fasaxdo laacibkeeda caanka ah ee Real South Korea ninka lagu magacaabo Zon ayaa dalab ka helay kooxaha Juventus iyo kooxaha kubadda cagta ee Naples ka dhamaan ka wada tirsan horyaalka dalka Talyaaniga. labada kooxood ayaa xiisaanaya Tottenham laacibkeeda Zon inay gacanta ku soo dhigaan taa oo ka dhigan markii la eego waqtigan Tottenham aysan ku qanacsaneyn sheekada. Manchester United ayaa iyaduna Leeds ka doonaysa markii la qadka dhexe Calvin Phillips ninka lagu magacaabo ka oo markii la eego caawiyaha Mark Villan uu soo daawacay 20 jirkan kooxda Birmingham kulankii wajahan isbuucii la soo dhaafay. Manchester ayaa xiisanaysa wiilkan Leeds qadka dhexe kaga ciyaara. Real Madrid ayaa markii la eego diidan Arsenal inay qaadato laacibka Dani Ceballos ka oo qaab ama waqtigan uga ciyaara Real ayana doonaysa in dib loo soo celiyo laacibka caanka Dani Ceballos sida ay qorto AS. Barcelona ayaa hadal furaysa international laacibkeeda Croatianka Ivan Rakitic. Barcelona ayaana waqtigan wada hadal kala furaysa Inter haddii ay siin karto laacibkaas dooniko jirka Ivan Rakitic. Liverpool daafic Joel Gomez ayaa isaguna markii la eego ciyaari doona xilli ciyaareedkan kulanka Tottenham maadaama wiilkan oo dhaawac kaga maqnaa kulamadii ugu dambeeyay Arsenal ayaan xiisanaysa 22 jirka. Manchester United lagu dar City ayaa xiisanaya Rogel kooxdaasi iyo England wiil ka tirsan ee daafaca Luke Martinez lagu magacaabo. Napoli waxay soo qabtaa leeyahay Fabian wa Napoli ayaa diidayba inay ka iibiso Manchester City laacibkeeda Fabian Ruiz 23 jir wiilka Isbaanishka ayaa waqtigan meel kaga socon kooxdaasi. Inter Milan ayaa 20 milyan ku qarash gareynaysa leeyahay daafac Dalbert 26 jir ka amaah kaga tirsan naadiga Fiorentina iyadoo kooxdu ay u haysato dooq inay si joogto ah kooxda ku siisato. waa sheekooyinkii ugu waaweyn suuqa liibsiga ciyaartooyda markii la eego warbixinada ayaa kuwii ugu waaweyn dhanka suuqa liibsiga ciyaartooyda.